ay dhulka aad joogto Mareykanka waa land of opportunity waa dhulkii fursadaha aniga beenku ma sheegay caawa haday lacagan Mareykan ku imaado ay soo gasho isla horaan tigidhka soo goosana waa soo baxa Mareykan waa imaana ani ama Yurub waa taga saan ku tago waa taga sababtana waa idin sheega war ninkan dhalinyarada ah ee magaciisa la yiraahdo Cabdi Iftiin TikTok-na ku soo gala Somali cowboy iyo Somali ayaa is haysta isbuucan waxaan rabnaa inaan u garqaadno inta aynan arinta guda gelin waxaan rabaa horta inaan sheeko idinka sheekeeyo Soomaalideena waa xasidin way is xasdaan hadda ka hor waxaa jira wiil aniga ii imaaday wuxuu igu yiri markaas aniga waxaan haystay 50,000 oo followers aan haystay wuxuu igu dhahay brother waxaan u baahanahay inaan share out ii sameeyo aniga 50,000 aan haystay markaas isagana wuxuu haystay 7,000 waa xasuustaa wiilkaas markaan u sameeyay share out waxaa dhacday ilaaha amarkiisa muuqaalka ninka aan share out ugu sameeyay waxaa daawatay 60,000 oo qof ninkii muddo week ka yar wuxuu gaaray 15,000 oo followers 14,700 meelaha 800 buu gaaray muxuu sameeyay matqana mask la xirtay mask koofiyada la gashtay ninkii meelihii shaaha ku caabi jirnay waa ka waay uu iimaan jiray maqaaxiyaan ka shaqeyn jiray markaas uu iimaan jiray ninkii oo maalintii dama waxa arkay dukaan agteena wax ka gadgadana waxaan nahay saaxiibkii maxaa ku dhacay kulaha niyo maskigan maxaa u xirtaan kulaha niyo dadkana ay arkayaan diida dadkan oo ay arkayaan diida anigii 50,000 ee followers ka haystay wajigayga ma qarinoy ilaa hadda aniso 300,000 ku dhawaad iguma xirna soo nin caan ah miyo dadkooda garanayaan miyo hadda the majority ku badana way wada taqaaneen Soomaa wallahi oo billaah oo talaha magaalada caadi asaga lugaya ma aaminsan inaan caan ahay dadka iska ma weynaysiyo qofkii garab weydiisto waan siiya qofka caawin karo waan caawiya shilinkii soo gala ama TikTok ha iga soo gala ama shaqadeeda kale ha iga soo gale wallahi waa caawiya dadka asagana 15,000 14,000 helay maskii xirta dadku iska weynaysiyo ilaahay muxuu qadaray in telefonki tuuga ka dafto asoo ku hadlaaya kuwa mootaale Nairobi waa artay waa laga dafay telefon cusub soo gatay muddo horta khadka ka maqnaa telefon cusub soo gatay show aw hebel TikTok markaas sameeysanaysid Gmail lagu xiraa ama waxa lagu xiraa number ama waxa lagu xiriirsadaa Facebook-gaaga sifa uusan kaaga dhumin aniga hadda kaygan hadda aan kala hadlaayo wuxuu igu xiriirsan yahay Gmail number kullu waxba igu xiriirsan macna Facebook igu xiriirsan yahay hadda I don't need inaan xitaa ma garanaysaa siira raadiyo aw hebel saaxib saxadu tagano ويما مرة الحولة دين شرط يسميه وأنا صاحب نحن عتاوى اسلو أنت شرط مكون سميناه مركب ورا محو سميه شرط أو سميه ضد بدنه هلي وحاد عضي ضد كيسكوينيسي مركب ما في عندنا ضد كيسكوينيسي حاسس نقطة أرنت كاوبوي Somali كاوبوي هذا نص نقطة نكان اللي يرضى طبعا سنة كهر أيوه حتجي ضلك أمريكان كا نكان اللي يرضى هو successful قفكم مركب successful هاي نميو اللي ما حسدو واش قيستي وحبوق قبصدي بوق قري بوقيس أنا جوان أخري رنتا في عناه موقتي إن كسر قيبة إيد ميهن بوقيسا قيبة حد ضمبة وإيد ميهن لكن وان أخري بوقيسا مركا نوني كان اللي يرى وحعة كمان موقته قال نمرة كم أرك دي قف مسلم أنا قال لا إله إلا الله سوء هاي أنا أركي قف مسلم وحى ميل هذو مركا نمية هو حاسس نمدس كده إني كان كفوقة أرنت كلا aan rabaa inaan idin ogeysiyo waxa waay dadkan westernka la isku yiraahdo ama Amerikaanka iyo Europeanka waxay inaga fiican yihiin qofkooda ma aragtay oo fashilka oo darbijiifka ah Afrika loo soo diraa Soomaaliya waxaan hay'adaha wato dhan darbijiif ay ahaan jireen dad waxa weeye kaale iska arag ma aha dadkan Europeanka ama dadkan cadaanka waxay sameeyeen qofkooda way gacan qabtaan xataa yanjaxa inagana qofkina lugahan qabanaa xataa yafshila إلا أوقف كانوا دولك ما عرفت وكتب أو حاسد كان يعني ومقرن ساقف حون كان نقض أو كفشل من ولا شيء فشل أنت حاسد إسكداية نكان اللي يرضى حتى حضو قال نقض كلا سوقات بتينا ولا نير عياو نكان حضو قال نقض دينتي إلهي سبحانه وتعالى وعوي وكم الناس وكتبوا وحوي قبر يا سجال ومتر الدنيا ده ولا كتجا مو كده سومرك أديك اللفتر كاجا وحلا قربا إن هذا مقارنة سايق قفك حمان أوراد ورسومالي كاوبوي بس وحري سومالي كاوبوي فرصتها عددك أدو فائدين يسوع يددك واحد الشيء ثانية وفي عند هرو سيور لكن بالشردي عددك إنه دباتيسين وباهين علمك عاد كبرت أمريكا
sida gaajada looga baxo sida creative loo noqdo waan ogahay dhulka aad joogto Mareykanka waa land of opportunity waa dhulkii fursadaha aniga beenku ma sheegay caawa haday lacagan Mareykan ku imaado ay soo gasho isla horaan tigidhka ka soo goosana waa soo baxa Mareykan waa imaana ani ama Yurub waa taga saan ku tago waa taga sababtan waa idin sheegaa Afrika hadaa ordo 10 sano shaqeyso Mareykanka waxa sanad shaqeysa ka badan soo marka waxa la rabaa dadka xisaabaadka isku dhufsaday ee dadaalka badan inaad dadaashaan oo hadaa dalkii ka tagi kartaan oo Mareykan tagi kartaan Yurub tagi kartaan inaad tagtaan waxa la yiraahdaa opportunity comes to you once it doesn't come twice fursadu sometimes ku soo mareen in lama rabo marka fursada inaad dayacdid dhalinyarnimadu waa fursad waxaan kale rabaa inaan idin sheego day ninkan Soomaali cowboy bilaasha ku haysatay fursadu idin soo bandhigay ma la socotaan adduunka Bill Gates iyo Jeff Bezos ma laha iyo aw hebelo Musk iyo maxaa la dhahay hebelo Donald Trump ma la balay Allah ku ridiyay isagana kaas waxa soo dhan waxay ku hormareen ma taqaanaa they look for the opportunity wa inaad fursad raadisaa anigu markaan bartay sida fursadaha loo raadiyo wallahi been idin ma sheega wallahi fursado badan oo waxa weey aan raadin jirin markaan arkay sida loo raadiyo ama aan bartay sida loo raadiyo wax badan aan noloshayda iska bedelay marka aad iyo aad baa mahadsantiin muuqaalkan share gareeya aad baan idin ku dheereeyo raali gelinaya ninkaana muuqaalka gaarsiiyay Soomaali cowboy la yiraahdo aad baa mahadsan